السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال مالك الدنيا كا joogtaan ku sarwaada maanta iyo barnaamijyadeeni taariikhaha ciyaartooyga waxaanu maanta soo qaadan doonaa taariikhda ciyaartooy weyn oo legendiya maya haddaan been la sheegayn haddii riskiska celis meel la iska dhigayo iyo taageernimo haddii meel iska la iska dhigayo ninkan cumadiisa ma haysan kartid maba haysan kartidba لاعب dhaafay kabiir mucaarad iyo muxaafid ay cumada ku tuuraan waa magaciininka David Silva ama nanays magaciisu waa Elmerin iyo Elmecho waxaa ninka kan uu yahay nin xirfad badan oo aad iyo aad u halis badan waxaanu soo qaadan doonaa haddaba ciyaartooyga Manchester City sanadkii ugu dambeeyay uu ciyaari doona ee David Silva waa mid kamid ah ciyaartooyga ugu shidan Premier League waliba mid kamid ah qadka dhexe ugu fiicnaa ee kubadda cagta soo maray buu kamid yahay waa ninka dhashay 8 January 1986 waana ciyaartooy Spanish ah haddaba ninka kaabaanu soo qaadan doonaa maanta taariikhdiisa oo wax badan gorfayn doonaa haddii aad channel ku cusubta saaxiib noo subscribe garay channelkeena si aad u hesho saacad kasta iyo waqti kasta macluumaadka taariikhaha ciyaartooyga taariikhaha kooxaha isoo bandhigu ciyaartooyga iyo entertainmentigii ama waxyaabaha kale madadaalada ah wayahay David Silva weegi doonaayo David Jesus Jimenez Silva waa nin halis badan oo Spanish ah wuxuuna daw ciyaaraa kooxda kubadda cagta ee Manchester City Silva wuxuu inta badan ka ciyaaraa qadka dhexe ee weerarka iyo sidoo kale qadka dhexe intuu ka ciyaarayo waliba sidoo kale wuxuu ka ciyaari karayaa galabka iyo waliba weerarka labaadna booskiisa uu ka ciyaari karayaa ninkan nin cajiib waa ninkan habeenku Man City ka maqan yahay wal warsanaan ku yiri Man City ninkan caadi ma ahan waxaan u maleynaa odagu markuu sanadka inkastoo hadda Man City baryahan uu Guardiola si qabs baryahan wuxuu isleeyahay Guardiola kiis David Silva waa sociyay bari ilmahan hadii ay shaqaysan karaan bal fiir u leeyahay bariyan City waxay sii baranaysaa nolol la'aan David Silva inkastoo sanadkii hore qaar badan ciyaaro badan isagu maqnaa xataa Man City isbixinaysay haddana xataa waxay City rabaan bariyahan Guardiola inta badan odagu gadaal buu ka keenay marka qaar la kulku markuu adag yahay David lagu soo bilaabo David Silva waxa soo heshiisay wayaan waan dhalinaya kulmada qaar asaga kulmada qaar gool buu dhalinaya waliba gool buu caawiyaa waana jikatoora habeenkaas banooniga dhan uu qabanaya markii uu Guardiola isla geed dacwad waa ka weynta raggan ber wuxuu keenayaa David Silva uu keenayaa marka laakiin bariyahan City waxay baranaysaa la'aan David Silva maxay yeelay adigu kulankii sanadkii ugu dambeeyay uu ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Manchester City marka ninka ogow weerarka dambe uu ka ciyaari karaya garabku ka ciyaari karaya weerarka dhexe uu ka ciyaari karaya qadka dhexe uu ka ciyaari karaya marka David Silva waa nin halistiisu badan tahay معارضي محافظ انت وملعن مركز معارض كويس مركز معارض كويديسو waxay kulli ardaaf silfa khatar waa ay kuleeyeen mucaafidku markaad weydiiso arkaas wax kale weeyaan bay kuleeyeen waxa jira ciyaartoy dadka kale mucaaradka aysan u qeerin laacibnimadiisa laakiin asagu mucaarad iyo muxaafidba ma lahano intaba cumada ku wada tuuran oo cumada laga ma haysto waa nin Spanish oo aad iyo aad u halis badan ba ninka la yiraahdo David Silva waxaana lagu naanaysaa Merin iyo Elmecho waana taageerayaasha magacyo ay ugu yeeraan asagu waxa lagu tixgeliyaa inuu yahay mid kamid ah ciyaartooyga qadka dhexe ugu fiican adduunida iyo waliba taariikhda Premier League wasagu wuxuu aad ugu khatar badan yahay baaska iyo gambiska iyo waliba wuxuu caan ku yahay lugta bidixeed asagu lugta bidix buu ku ciyaaraya ninka lagu magacaabo David Silva adduunku marka khad dhex loo noqdo David wuxuu kamid yahay dadka adduunka khadka dhex u soo maray kubadda cagtu kamid yahay marka laga hadlayo Premier League-una iska dhaaf Premier League cumada waa lagu wada tuuraya si weyn baa loogu tuurayaaba haddaba ninka kan ee yiraahdo David Silva 6 sano ayuu ku soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Valencia waxaana uu soo ciyaaray 150 ciyaarood uu soo ciyaarayo isagoo kula soo guuleystay ciyaaraha kubadda reegi sanadii 2008 waxa uu ahaa Valencia ragishiday ninkan David Silva iyo David Villa iyo maxaa la yiraahdaa Bareqa iyo wala badnaa iyo warrag aan inaba caadi baa u ciyaari jiray marka ninkan 6 sano ayuu xirfadiis ku soo qaatay inta Man City u imaan David Silva waxa lagu soo bartay oo qatar lagu soo ahaa Valencia Real Madrid baa waxa leeyahay dhowr mar isku dayday ninka ka qaadato laakiin Jabirantis way ku nacaan waxay isleeyihiin arkan cunug yar oo jab yar u muuqdaa laakiin asaga Premier League la isdaadafayo ee la isdadagaalayo ee xooga ku dhisan ee physicalka ku dhisan waa kay ka shaqaysanaya ka warhaya Madrid waxay ku diiday inay ku qaadato ninka kan waxay ahayd wax kale ma diidin wuxuu muuqday nin shab yaro ya korqanba bay u muuqday yaani nin yaro gaaban oo dhicis buu u muuqday oo aan wax gaabni badan oo hadana dhicis yaani u muuqda mid yaris dadka xoog aan isaga dhici karo u baleynaya hadda se Premier League oo horyaalka ugu shidana awood buu ku yeeshin ka ciyaaro waa kay la celi karin jir xataa ma la saari karo maalid baa wuxuu la hadii baala mar wuxuu ku dhawaadin Manchester United ku beero markaas wuxuu waxa ka hadlay arintaas Berbatov wuxuu ma taqaana dimada Berbatov Manchester soo ciyaari jiray wuxuu yiri
Dybala runtii aanu ilmahan buu leeyahay inuu la qabsan karayo Premier League sababtoo wuxuu leeyahay waa nin gaaban oo haddana aad yani u xoog badnayn buu leeyahay Premier League xoog buu ku dhisan yahay uu leeyahay inkastoo laakiin Premier League uu Sommer uu leeyahay David Silva oo nin inana baanu caadi ahayn buu leeyahay haddana sidiisoo kale u jabiyay uu yiri uu gaaban yahay uu yiri small uu yahay haddana shaqaysanaya marka ninkanu waxa weeyaan nin gaaban haddana shaqo badan oo jir laguma karo waa nin halis badan loo istaagi karin marka waqtigiisa Valencia ku soo qaatay waana halka lagu wada arkay 150 ciyaarood kadib dalreega uu la qaaday 2008 kadibna 2010 wuxuu kamid ahaa raggii nooleeyay Man City raggii shida dabka Man City uu kamid ahaa Sheikh Mansour baa kooxda keeninka kanu ilaa iyo maanta waa lagu shaqaysanaya koow daldalaya Man City league dadkii shiday ayuu kamid yahay kanu yiraahdo David Silva kula xil ciyaadka ugu dambeeyay sanadkan u ciyaaraya runtii waa loo xiisi doona David Silva ninka la yiraahdo David City la xataa iska yiraahdo David City baa yiraahdo maxaa yeelay City dadkii wax ka dhigay uu kamid yahay marka David City ninka la yiraahdo ama David Silva ayuu dhaqaaqay Manchester City 2010 waxaanu u ciyaaray ilaa iyo maanta 400 oo ciyaarood buu ciyaaray waxaanu Man City kula guuleystay 2 jeer FA Cup-ka 4 Liga Cup-ka waliba wuxuu la qaaday Premier League oo la qaaday 4 jeer oo uu Man City kula guuleystay waliba labadii sano xiriirka la soo dhaafay isagu la qaaday marka xilli Premier League u adag yahay oo Benoniga la isla bartay oo waqtigii Bale aanu Benoniga ahayn waqtigii Bale Bumana waa gaabneed waqtigii Bale Brazil uu jirjiri anagu waxa la maqalnaa Bale waqtigiisa Bale la maqalnaa waa xilligii Bumagaabtan raada markaan xilligaas waa xilligii Bumagaabta Benoniga la isla aqoonin Benoniga ma la isla aqoono Bale adduunka uu yaro roobnaaba isagu xataa isii kubadda ordes u ahay kadibna Antur uu ahaa kubadda uu ahaa bid uu leeyahay فرح وكجمع مجرس وقفوس سلوى مليه ملدي كره فردور حتى هجمه سير رب جول هو نجر بريها ما أنت ورينا ذا ويهرب مرين عصري ما أنت وريها هذا إيش واحد سنبيل وجاري واحد تاي بيل ونيك هو جالش بدل عياره كن يأفر بقول كل شيء بقول جول أبو دليه لكن سي جوش كوبا هنجر تمتقنا السي فردور ووف للسيجري جنب بيسكاني شو تسكا مجرين جول ميسيات كهذا الدليه جول رونالدو كي وحمد على جول المجرين وحويان السي كوبا جمل إسك هنجرتي لكن كوبا ما ترى شو تسي دفاع ولا مرة ولا وريسنا ولا ريدا ولا عوريجنا ما أنت كوبا وحويان ولا سلب برتيو بوما إربال لا مرة بحلقة بوما دير عصري ودافيد سيلفا لما حل عيارات حر برميل قاضية برميل لا قاضية وحل برميل أدق يحي وأفر برميل لا قاضية مان سيتي مركا نيكا والله شقيستي مان سيتيو لبا اف كاب أفر ليغا كاب أفر بريمير ليج بولا قاضي ولبا أستقو وحال لو تحقلين ويا ميد كميدا عيارتوك وقفعنا مس تاريخ الصومري سام وحقيب كغيهي دافيد سيلفا لجنتي سيت صومري تاريخ إساقا إيو نين يرادو بيلي مريدت إيو نين يرادو تروتمان إيو نين يرادو كوليبال إيو إيو سيرجي أغويرو وحال لغو تريا أنت سوان ترين إيو رجع أقول لك سنة من تسيت تاريخ الصومري كان بريقودي سحتا واني كلوين لكن رجع كان وراك سيوين ويانو مركز سيلفا حتى وحمر أفر لقود دري حتى كوحدة سنة كوقف في عن بريمير ليج أيام لقود دري لوجر ولبا لح إلى واتنكي جون لبكو تبيسالكي دافيد سيلفا وحكون واقعي إنه حل عيرات كان لبكو تبيسال لبكو لاتنكا ويا عيرات كيسو قدام بين ستو عياري دونا كدينا كتجي دونا وحنا سو أفجري دونا طبعا حل عيارات بوس أفجري دونا طبعا حل عيارات طبعا سنو ما ستيل تشوجي بوس أفجري دونا سديد إلى واتنكي سبتمبر السجو حنا نقضي داير كي يراه يا واروا أسبوع عنه وحنا نقضي سديد إلى واتنكي سبتمبر وحنا نقضي داير كي يراه إلا بقول أو جول برميلي وجاره وحانو يعني وكسر مري عيارتوغا جون تيري يعني حتى وحو نقضي عيارتوغا ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda Premier League ee kulamo yar ku gaara 200 oo gool 200 oo gool dhaqsi ku gaaray halka ciyaartooyga kubadda cagta ku qaadanaysay 300 oo kulan ka badan ku qaadanaysay inay gaaraan 200 oo gool Premier League asagu wax yar bay ku qaadatay inuu 200 oo gool gaaro Premier League kolba kooxdiisu waxay ahayd Man City waqtiyadii ugu dambeeyay koox guuleysata oo kulamo badan guuleysanaysa waana sababta u fududeysay inuu gaaro rikoorkan asagu wuxuu ka soo noqday Isbaanarka xulka Spain waxaana kulkii ugu hore u ciyaaray sanadii 2006 waxaanu ka duqoobay ciyaaraha 2018 asagu waxa uu ka soo bilaabay ciyaaraha kubadda cagta markuu 20 jir ahaa waxa uu yahay mid kamid ah 13 ciyaariyahan ee boqolka kulan u saftay wadanka Spain waliba asagu 35 gool uu dhaliyay wadanka Spain wuxuuna taa ka dhigantay inuu yahay ciyaartooyga afraad ee taariikhda ugu goolasho badan xulka Spain waana nin qadlax ka waran waana ninka afraad ka waran ee taariikhda xulka ugu Spain ugu goolasho badan weeyaan waliba 28 caawin ay wadankiisa siiyay Spain waana ninka labaad ugu caawinta badan taariikhda wadan kan ee Spain marka ninka la yiraahdo David Silva xitaa wadankiisu wuxuu la soo qaaday koobkii UEFA Euro 2018 koobka adduunka iyo UEFA Euro 2012
ma aragtay ninkan uu dhayar yahay u muuqdo inuu yahay sidii kuuriyaankii jabaaneyskii indhaha yaryara oo kale maxaa yeelay hooyadii Eva waxay ka soo jeedaa Japan waana isagu sababta uu yahay Japankii oo kale uu dhayar yahay iyo kuuriyaankii oo kale uu yahay mid yaryar oo sida Jackie Chan iyo aqyaartoodii isku mid u maleysaan inuu ninku Japan yahay mareynaysa maxay hooyadii ba farac Japaneed lahayd marka taasuna waa taa asagu waxa 2018 loogu cimaamadii cunugiisii ugu horeeyay oo waa loo dhalay inkastoo xanuun uu ku dhashay balse markii dambe ciyaaro badan xataa uu masiitu ciyaari lahaa uu sheegay David Silva maxay cunugiisii ba bila dhalad ku dhameystay oo wuxuu ahaa mid ma taqaan waqtigii la fili ka soo hormaray sidaas daradeed kadib odagu wuxuu ka dhibaatoonay cunugiisa ugu dambeyntiina cunugiisa Matthew hadda uu fiican yahay guriga inuu la joogaa waxaan hadda doonayaa sababta ciyaaruhu fariisana waxay tahay waxa cunugo waahayo aabbu noqdeen ka aabbo waa cunugo waahayo cunugo ilmo waahayo waa kay sababta ciyaaruhu fariisana wuxuu ku leeyahay guriga inaan tagaan rabaa oo cunugteedu cunugaygu la ciyaaro David Silva waqtigiisii Manchester City waxa uu u dhaliyay 70 gool waqtigiisii Valencia 90 gool uu dhaliyay waqtigiisii ciyaaraha kubadda cagta uu soo ciyaaray asaga kooxaha Aybar oo soo ciyaaray 2004 Celta Vigo uu ciyaaray 2005 Valencia uu ciyaaray 2006 ilaa 2009 kadib Man City ku soo biiray 2010 kanu 2018 xil ciyaareedkan hadda waa ka ugu dambeeya ee uu xirfadiisu u ciyaari doono David Hulkis wuxuu dhaliyay xataa 35 gool waxaana David Silva uu ku guuleystay koobka ugu waaweyn kubadda cagta Premier League FA Cup League Cup Community Shield حتى وهو لقاضي ودن كيسة إسبان وهو لقاضي كوب أدون يولبا يورو نقول لقاضي ودن كيسة يورو والله وجهه يا كوب كدونكو مركز دافع سيلفو نقول يستأه أو كوب دعك تلقصو أركي أنت وانكو وين دونا تاريخ عيارتوغا وين دافع سيلفا هدي أدنو هيسو تاريخ عيارتو ما قاعد نو شيء يسو وانا دي سوق بدونا إن شاء الله هدي هين عيارتوغا ما أنت عيار يو عيارتوغا كوب دعك تكفر يستوي أنت تاريخ وحن كوسو بدونا إسلا channel كينا كان هذا noo subscribe gareyso waxaad helaysaa saacad kasta waqti kasta taariikhaha la soo gali doono la socon doontaa iyo waxyaabaha kale madadaalada inta uu gogoynayna anigu qaar baa la socodsiinay nabad galiyo